Waa salaam dhamaan akhirta meel walba aad joogtiin. Waxaan rabaa inaan tuso sida loo isticmaalo Google Meet. Laakiin intaan tusin ka hor information yar oo Google Meet ku saabsan aan fiirino. Google Meet waxaa la sameeyay 2017 waxaana lagu bedelay booska Google Hangout. Google Meet maxaa waaye? Google Meet video conference waaye ama video call sida u taqaaniin. qof walba oo Gmail account leh uu isticmaali karaa. halkii meeting waxaa isticmaali karto 100 qofood. muddo 60 daqiiqo isticmaali karaan. laakiin haddaad tihiin hal qof, 2 qof ilaa 3 qofood haddaad tihiin 60 daqiiqo idinku xiraayo oo ilaa waxaa isticmaali kartiin muddo ilaa 24 saacadood. haddii intaas ka badan u baahantiin yani sida shirkadaha ama iskuulada kale waxaa loo ogol yahay ilaa 250 qofood. haddii ay u baahan yihiin dad oo banaanka kasoo qayb galayo waxaa loo ogol yahay iyadana 100,000 oo qofood. dabcan lacag ay ku bixiyaan shirkadaha waa ogtiin. haddii aan hordhac idinka siiyo waxyaabaha aan rabo inaan tuso waxaa waaye sida meeting cusub loo sameeyo, sida meeting samaysan looga qayb galo, iyo waxyaabo yaryar oo ay ka mid yihiin sida video background-ga loo bedelo, sida screen share loo sameeyo ama shaashada computer-ka loola wadaago dadka kasoo qayb gala meeting.